بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي ونحسن داوديال halkan waxaan rabnaa inaan idinka sheegno barnaamij cusub iyo website cusub oo aan soo wadno oo la magac baxay wararka codadka Soomaaliga ama Somali Voice News Media. barnaamijkaas oo aan ugu talagalnay shacabka Soomaalida meel kasta ay joogaan, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. website-kan waa website laga soo shaqeeyay muddo badan oo ka caawin doona ummada Soomaaliyeed in codkooda la maqlo. waxaa jiro ummado badan oo meediyaha ka shaqeysata laakiin ugu shaqeysata arrimo khaas iyaga u ah oo aan community-ga waxba ku dheefin. website-kan la magac baxay wararka codka Soomaalida ama Somali News Media ama Somali Voice News Media waxa uu ka caawin doonaa ummada Soomaalida baahideeda ay u qabto dhanka warbaahinta, waana barnaamij fair and balance ah. barnaamijkan wuxuu maxaa la dhahaa hadduu Ilaahay yiraahdo ka baahitiri doonaa ummada Soomaalida, gaar ahaan kuwa dhibaatada lagu hayo sida state-ka, city-ga, landlord-ka iyo waxyaalaha shaqada ku saabsan ama work compensation-ka la yiraahdo ama employment-ga, community engagement-ga, community outreach, community activism, community legality term and all community needs. waa cod u hadli doona dadka aan badanaa codadkooda meelaha la gaarsiin, wuxuuna isku xiri doonaa bridgeska kala ah Somali community oo degan North America iyo society-ga ay la degan yihiin meeshay degan yihiinba. in another word, mideeda kale wuxuu isku xiri doonaa oo codka iskugu gudbin doonaa dadka degan ee aan halkan ugu nimaanay iyo annaga gaar ahaan Soomaalida ayuu codkooda isku xiri doonaa. maxaa yeelay kadib markaan arkay waxyaalo badan oo aan uga baahanay meediyaha current-ga hadda ka shaqeeya magaalooyinkan Twin City iyo elsewhere meel kalaba, iyagoo tooda un eeganaya tu dadweyne iyo mid miskiina aan xil iska saarin ama the voice of voiceless community. marka barnaamijkan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa la yiraahdaa Somali Voice News Media. It's community voice, it's everybody's voice, it's your voice, it's my voice, it's their voice, it's he and she, his and her, yours and mine, ours. gedigeenaba waa codadkeena ka faa'iideysi wacan. website-ka waxaa la yiraahdaa somalivoiceNewsMedia.com. alaaba waxaad kala socon doontaan wararka cusub, landlordyada, dadka la dhibay, dadka community Carmel business moolasha Soomaalida kule xuquuqda laheena wax liisaska loo saxiixin, dhibaatooyinkooda. inkastoo aan hadda documentaries badan ka shaqeynayna, aan soo deyn doono ku saabsan xuquuqda dadka Soomaalida ee ganacsatada ah ee lagu tunto, gaar ahaan ninka Carabka ah
ee isagu Carmel iskale amaba codka Soomaalida ku helay iyo qaar badan oo mooda inuu aabahooda yahay, husbandkooda yahay, walaalkooda yahay, dariskooda yahay, twinskooda yahay. barnaamijkan wuxuu cover gareyn doonaa alaaba baahida aan u qabno miiriyaha. waxaan kaga xaqa bixi doonaa ama kaga oon bixi doonaa sida biyaha sadda uga oon baxay oo ii oon tiray miiriyahan. waxaan oga haraad bixi doonaa dhibaatooyinkeena la xiriira social, economic and political issueska, xaqa aan stateka ku leenahay, keenu leeyihiin inequality and equality termska oo aan ku leenahay meesha aan ku noolnahay iyo alaaba waxyaalo badan oo Soomaalida aysan cover gareynin. waxaa kamid ah dhibaatooyinka caruurtayada lagu hayo maxkamadaha, city jails, xabsiyada magaalooyinka iyo kuwa state-kaba. haddii Ilaahay yiraahdo aan kaga oon bixi doonaa barnaamijkan oo qof walbaba soo fadhiisan doonaa isagoo ka hadlaya cadaaladda, sinaanta iyo dhaqaalaha Soomaalida, gaar ahaan sheerka iyo mudnaanta aan ku leenahay meeshan aan ku noolnahay. haddaba daawadayaal, it's your duty inaad support garaysaan. waa xil na wada saaran barnaamijkan oo aan idin weydiineynin 1 cent, 2 cent, 3 cent, 5 cent, waxba aan idin weydiinin, laakiin idinkula duuban inuu free idinkugu shaqeeyo idinka iyo dhammaan communityga Soomaalida meel kasta ay joogaan. arrinteena labaad wuxuu cover gareyn doonaa arrimaha accountability-ga dowladeena Soomaaliya, xuquuqda citizenkeena, xuquuqda dadkeena Soomaaliya ku nool iyo dowladda Soomaaliya isku leeyihiin. madaxda jeebka lacagadaha ku shubtay ee guryaha cabirto, ummadaha guryaha ka degan, gurigaaga iib for sale lagu soo qoray subaxii iyo waxyaalo badan oo xuquuq ah ayuu barnaamijkan cover gareyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba meeshii xuquuqda Soomaalida ku lunto ama xuquuqda dadka bini'aadanka ah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.